السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة يا لما دقيستي الكسر دوّا برنامج كأني سراع عب سومالي مكو بدون كان دبا كبرتين كلاس عنو شان شدين العالمي كلسن تيفي وحلقة يابا إن أنا يدك ولي قارن سعني لكن بالهذا لقى بلعبة حد ينصور لافتي حد يا حدا صوص إن شاء الله تعالى هدي لها ودلو قلاد واحد كلاس عندنا تلفزيون كأن العالمي كلسن تيفي waxa aynu soo qaadanay ama maalmihii dhawaato aynu barnaamijka u qaybinayeen ahaayeen saddex qaybood saddexda qayboodna ay ahaayeen bal marka ugu horeysa aynu ka sheekayno waxa Soomaaligu yahay Soomaaliga markaynu wadno waxaynu geli doonaa qaybta garaha oo ah qaybta labaad ee muddooyinkan imika soo socda insha Allah taala aynu geli doono ka bacdina aynu geli doono bal wixii aynu maansooyin eegayna hadii ay qaldan yihiin iyo hadii ay saxsan yihiinba walaal aynu maanta hayno bal hada qaar kamid ah maalintii dhawtaa Soomaaliga waxaynu marinaynay ma taqaanid beenta runta barashadeeda bal ka hor joogta ninkii yiri bal horta marka ugu horeysa aynu eegno waxaan hadal ahayn buu dadku wax isku fahansiiya waxa aanu hadalku ahayn baa waxaad u bedelaysaa kelmado markaas qofkii wixii kelmado intaad u bedesho u sheegaysa oo uu fahmaya waxaynu ku jirnay shantii dareen aragii iyo urtii iyo dhadhankii iyo maqalkii baynu ku jirnay sida inta iyo dareenkii taabashada shantii dareen bal hadda inta erey loo bedelo sida aan kuugu sheegay hadana iyo qaababkii soo wadnay waxa jirta imika for example waxaynu istul dhigaynaa aba aynu soo qaadanaa reen ta sanqadh gariir jabaq guux kololo jibaad duunyeedhis oohin baroor surbacaad khaylo cabaad qosol waxaasoo dhan markaynu soo qaadna hadal maaha hadal maaha haddana waa wax la isku fahmo waa wax haddana la isku fahmo haddana haddii aan erayo ka dhigo maxaad ku qosashay muxuu la taahay muxuu la reebayaa shabaq baan maqlay guux baan maqlayaa gariir baan dareemayaa waxyaabaha noocaas oo dhan marka aan erayo sanqarihii baa waxa loo kala bixiyay ama waxa jirta imika dhawaaq oo ku jirto kuwan dhawaaq waa hadal isagu aadama baa dhawaaqa dhawaaq baan maqlayaa dabeedna libaax baa ciyaaya ma hal libaaxii dhawaaqi dhawaaq waa bil aadan hadalkoodii oo aanad garanaynin markaas baa la yiraahdaa dhawaaq baan maqlayaa laakiin oran maysid okay way kala wada duwan yihiin 17 kan ama 18 kan eray ee aan idin sheegay way kala duwan yihiin mid walbana af Soomaali baad ku fahmaysaa af marka loo bedelo eray marka loo bedelo baad ku fahmaysaa sanqadh aadamihu ma sanqadho shay baa sanqara shay laakiin shayga waa laga sanqariyaa bal hadda u fiirso shayga waa laga sanqariyaa qalin baan quraarad ku garaacaya dabeedna sanqar buu samaynayaa qofku orimaysid wartaha naga daa ama reenka naga daa ama gariirka naga daa war sanqadha jooji baad oranaysaa waxaan aad ku garaacayso erey ayaan ka dhigayaa markaas kabacdi markan ereyadii af Soomaaliga u doortay af Soomaaligi ayaad fahmaysaa laakiin marka hore fahmi maysid sanqar wal iyo dhawaaq wal iyo wax kasta oo ay dhagtu maqashay maqal ku keentaaba macnay leeyihiin sida imika af Soomaaliga loogu doortay afwaaf imika haddaan halkan Ingiriis ku hadla ama Talyaani ku hadlay ma fahmaysid waayo dhawaaqii aad u dooratay af Soomaaliga ayaanan ku hadlaynay dhawaaq af Soomaaliga u dooratay waa maxay
وبا تا تا ح خ د ر س ش د ع ج ف ق ك ل م ن و ه ي أ إ أو أو ا اي او او وانت هرت سومالي وين اسلا غرانينا با تا تا ereygi haddaan idhaahdo afafka kaleba way leeyihin ba af carabigu waa leeyahay ba ta waa leeyahay ja waa leeyahay maxaa haddaba la isku gartaa sida ereyadan la isugu xidhayo ayaa imika waxaan odhanayaa ereyadan af soomaaligan odhanayo ayaa mid walba macnuu kuu leeyahay kabacdi baa waxaa la yidhi waa dadkii af soomaaliga dadkii af soomaaligu ka hadlayay ereyadii ay xusheen markaasaad fahmaysaa laakiin haddaan talyaani ku hadlo sidii la isugu xidhaayay ereyada ayuun baanad fahmaynin dee oo aan ahayn dhawaaqii aynu naqaanay ee ereygu macnaha kuu samaynayay baanu ahayn markaa wuxuu noqday meel kale talyaani buu ku dhacayaa talyaanigii buu noqonayaa ingiriisi buu ku dhacayaa ingiriisi buu noqonayaa waa dhawaaqyo la isu geeyey af soomaaligu dhawaaqyadaa waxa sameeya baynu nidhi afka iyo carabka dibnaha iyo inta ka hooseyso carabka leh iyo ilkaha iyo dhawaaqa iyo duuntaada ayaa sameeya laba eray ama laba xaraf ba af soomaaliga dham dibnuhu sameeya labada dibnood oo adoon dibnaha isku qaban aad oran karaynin waa ba iyo ma haddii aan dibnaha isku qabanin oo dibnaha kala qaado ba ana ma oran kartid ma ana ma oran kartid waa labada eray labada xaraf ee dibnuhu sameeyaan shaqaladu maxay kaga duwan yihiin haddaba shibanayaasha duuntay ka sanqaraan iyagu afku kama falqaato laakiin waa duunta a e i o u adoon meelna dhaqaajinin ayaad duuntan ka yeedhinaysaa a e i o u na iyo la carabka iyo ilkaha saraa sameeya ja iyo ya waxa sameeya gowsaha dambe mar walbana waxaad eegtaa labadii xaraf meel ka wada dhaqaaqa marna dhuuntaa xidhan marna dhuuntaa furan oo carabkiiba mar wuxuu ku ballaarinaya ya wuu xidhayaa ja markaad tidhahdana carabkaagiibaa wuxuu soo dhexgelayaa gowsahaagaa dambe dhexdoodo dhan buu carabkaagi soo gelaya soo noqonayaa ja adigoo gowsaha istaafsiinayma ama aada isugu soo dhaweynaya dhawaaqyada noocaasa baynu inagu u naqaanaa ja kaana ya kaana ba marka la isku xidhee baal la yidhaahdaa baad odhanaysaa waa baalkii shimbirta tagoogo waa ta iyo a iyo ga iyo laba o iyo ga iyo o waa saddex aloonka dhexe dheer yahay waa xarfaha ugu dheer af soomaaliga haddaanay 4 mid iyo 2 noqdaa laga yaaba laakiin saddexdaasi u dheer yihiin walow ay jiraan laba dhaadheer iyo mid gaaban ibadee laba aleenoo dhaadheer iyo mid gaaban ay jiraan qaar baa waxaa jira saddex gaagaaban iyo mid dheer baa jiro jiboqtaamis waa erey dee la isu keenin laakiin waa dheer yahay isba way halkaa markaynu ka nimaadno ayaa ninbaa wuxuu doonayaa inuu dareenkiisa kuugu cabiro sanqaro wixii ku dhacay baa wuxuu noqday qaylo loo keenay qayladiiba wuxuu doonayaa inuu sanqar kugu toosiyo waxa la wixii sanqar yaalay buu af soomaali intuu kuugu soo bedelo humaaga sida sanqadha humaagan sanqaraha sida af soomaaliga lagu bedelaa waa meelaha ugu cudoon ee af soomaaligu uu ku yeesho maansada ma aha un maansadan iska dheh ma aha maansadu inta halkaa istaagay inaan dhahdo qalbigan rabarkii had muradaya iyo jacayl ebarkeeni dhibcaha ixtiraamka iyo inaan wuxuun ku guro ma aha waa inaan la doontaa waxay ahaan jireen waa inaan isa soo saaraa imika fraago ogaas ninka la yidhaahdo ilaahay ha naxariisto ayaa gabadhiisii dhimatay baa loo sheegay qayladii loo keenay iyo sanqadhiibu waa gabayga keliya ee sanqar keliya sanqadhaha siiqadaa sanqadhaha raaca ee aan meelna uga bixin sanqadhihii buu doonayaa haddaba inuu caqligiisi iyo humaagiisi kugu fahansiiya haddaba waa sanqadh waxalla wixii sanqadhayay buu isu keenayaa af soomaali buu usoo bedelaya markaasuu doonaya inuu ku geliyo isagoo dareenkiisii ku cabiraya waa meelaha ugu macaan ee maansada soomaalidu ay ka tahay meelaha ugu yani ugu cudoon sida kooraha yucub oo la suray koramo buubaala bahashan koorta la yidhaahdo aleenkeedu wuxuu aleenku waa carabkan koorta dhawaaqa uu ku dhaco waxa ugu qaylo badan koorta laga sameeyo geedka yucubka la yidhaahdo geedka yucubka la yidhaahdo koorta laga sameeyo bal ka waran oo ugu sanqar badan markaad korin yar oo orod meelan oo istaagayninba aad saarto sida kooraha yucub oo la suray koramo buubaala
bal haddaba kooraha soo fara badan oo koramo buubaala la sulay ka waran sanqadhoodu waa qaylo eeg hadda siduu wax kuu tusayo beydka marka aad maqasho meel u socdo ma leh heebaad odhanaysaa iminka haddaan idhahdo cali oo laguma helo geel sidaa ku halwanaysaan waa jumlad buuxda sidan aad doonaysa cali oo geel laguma helo geeridii xirse sheegayeen gacal ha waayeen waa beyd laakiin waa beyd buuxa macnuu sameeyey beydka laakiin sida kooraha yucub oo la suray koramo buubaala macna ma samaynin waa meelaha kasii wanaagsan ee farshaxanimada le raagowgaas gabaygan waxaan usoo qaadanaynaa maanta waxa weeyaan waa gabay farshaxanimadiisu in badan aan ka sheekeeyey gabay farshaxanimadiisu aanay weli samaynin raggii hore ee ragga dambe toona raagowgaas wuxuu ahaa dee afarta tiir ee dee maansada soomaalidu leedahay mid kamid aba ilaahay naxariistana ka waraabiyo marka sanqarihii ayuu haddana humaagiye aguuga ayuu ku siinaya oo aan mid la macno ahayn oo aan gabaygu waa in isku xidhmaa kan isku xidhmi maayo haddana sida sagsaaga ayuu markuu 7 bayd ku siiyaabuu hal bayd automatically isugu xidhayaa intii aad soo dhaaftay oo dhan waa waxyaabaha caqliga oo farshaxanimada dee la isdheeraabay wuxuu yidhi sida kooraha yucub oo la sulay sida koorta yucub oo la sulay koramo buubaala beydkaasi isagoon macno lahayn ama baylo keenaana oo kor hayaamaayo qaylada halkaa sanqadhuhu soo qaatay waa maxay beeshu marka ay kaynaanka tahay ee col iyo abaari gasho dusuudda iyo ciyaalka iyo xoolaha iyo sanqadhaha ka baxaaya masaad odhanaysaa hee muxuu haddana kuugu soo qaatay sanqadhahaas oo dhan baa dushayda ka baxaya buu ku leeyahy oo la ii keenay haddana weli macno ma leh sida kooraha iyo cibolo jiro koramo bubada hee macno ma haysid ama beelo kaynaan ah oo koru hayaamaya ama ceel karkaarada jabshay iyo webi karaar dhaafay ceelku goormuu haddaba ceelku intuu soo maaxo dee soo ma buqlayo karkaarada ma jabiyadee waa marka biyo dusha socda ay ceelka u yimaadaan ee uu ceelkii biyihii ku dhacaan waa fataha webiyada waa fatah ama daad waa fatah webiyada dee ama ceel karkaarada jabshiyo webi karaar dhaafay webigu goor markuu fatahaya waa markuu dee karkaarada jabiyo sanqaraha xayawaankii biniaadanka iyo biyaha laftooda ka dhakacaya ka waran iyaguna sanqaruhu halkaana ku siiyey welina 3 bayd iskuma xidhna mid gaar macno u lihina ma jiro farshaxanimada noocaasa shinni kaaluf galay ama sakaroon korkoo oomi bal waxaad ka warantaa cudurka kaalufka la yidhahdo markuu shinnida galo waa marka intay qaylisay biniaadanka disha xitaa sanqaraha ka baxay in arkooyin baa arkay koron korkoo oomayna waxa weeyaan bal hadda saloolkaa daawaha saar hadhuurkaa oomay bal daawaha saar sanqaraha ka baxaya bal u fiirso marka ee saloolku ku soo dhacaya daawaha ama kaal dallay qaybsatay iyo kuliya daaryaabis bal waxaad ka warantaa imika qaxootiga marka loo dayuuraduhu ay cuntada u daadinayaan siday cuntada isugu qaybsanay qaylada iyo qabaaqa iyo kala jiidka iyo sanqaraha halkaa uu kaa siiyey haddana mid walba gaarin buu kuu siiyo waad yaaban tahay war waxaanoo sanqadha muxuu ku keenay siiqadii sanqadha kan kamuu bixin bal ka warana sanqadh buu hadda imika kuu macnaynaya waa sanqadh wuxuu kuu macnaynaya waa tay eeg waxaan doonaya inu barnaamijkeena isku xidhanno sanqadhihii ayuu inta af soomaali u bedelay buu kuu sheegaya mid kalena macna kuguma sheegin haddana hadhowbay soo ka xidhaya waa farshaxnimada ugu sarreysay maansa laga tiriyo ama habar kurkiiyo wadnaha kaw lagaga siiyey cabaadka islaanta ayar marka la qabtay ka baxaya bal ka war intaa markuu yidhaahdaa buu odhanaya xalay kololagaygii ma ladin kaamil reeruhu anigana xalay kololagaygii taahaygii iyo reenkaygii iyo yacni sanqadhaha aan bixinayey ma ladin kaamil reeruhu isagiibaa isku soo daray sanqadhihii war ninka maxaa ku dhacay baad odhanaysaa bal hadduu fiirso 7 bayd buu horta isugu kaa soo cufiyey bal hadduu fiirso random buu ku sameeyey wuu soo gubay wuu soo yareeyey kumbilkii ardaagii miyaa laygu kaleeyey markaas ageed ogaanaysaa inay gabadh ka baxday gabaygu muxuu mucjisada shanaadeeda uu leeyahay ay tahay nin ragii gabadh ugu calaacali jirin gabay hadda gabayga gabadhiisa ugu calacalaya kamana muuqato gabadhi bal farshaxanimada kaluu halkaa ka geliyey eeg gabadhi kama muuqato ma odhan kartid xaaskaagi baad ugu calaacalaysaa haddana sanqaro ayuu ku soo qariyey calaacalkii gabadha subxaanaka ya cadiim yacni waa dee farshaxanimo aan cidi gaadhaynin rag dee imika dee hadday sameeyaan gaari kara waa jirayaan laakin de I don't know
halkaa markaad maraysaa boonaya ma wixii rigu ku yeeyay baa igu karaamoobay kumbuskii miyaa layga qubay kaliyo ii buuxay habaarkii baa la ila helay gabadha deed gabadh wanaagsan buu qabaa xadii qabaa gabadh wanaagsan buu qabaa lahaa kob abaar oo dhexe miyuu koora ila meeray bal sanqarihii wuu ka baxay imika sanqarihii oo dhan markuu kuu soo sheegay wuxuu kuu sheegay halka uu taagan yahay saxaraha sacuudiga bal nin faras kula luma ka waran deesaad u dhex wareegaysaa baad ku dhimanaysaa kub miyaan ka jabay waa halmiceedkii biixaanka bay loo hayn faraska iyo awrku markay jabaan midna waa la toogtaa midna waa la qashaa waayo makabmaan anna sidaas oo kale aan haybu leeyahay islaantii yareedo ilaa khubradeeda garanaysa deemkana mid damba ma qaban karayo timaha odayaashan waaweyn tu yaro ay awow macooyo noqonayaan isku labarogaya maaha laakiin ha isagu wuxuu leeyahay dee wadaadaydii yareeda aan isnaqaanay socotaya talowana marka horta waxaad ogaataa sanqaraha sida wax loogu soo bedelayo bal af Soomaaligu ninkaasi sanqaraha uu wax ku macneeyay islaamka uu lagaga siinayo iyo shinida iyo kooraha waxaas uu hadana image-kiisii humaagiisii aqoontiisii iyo dareenkiisii wuxuu kugu soo cabiray muxuu soo bedelay af Soomaali waa sanqaro ayuu af Soomaali u soo bedelay meel qurux badan baad doonaysaa waad aragtay wixii aad aragtay iyo oran maysid intaad indhaha saa eegtaan indhahaagu kala bixi maayo inaad meel qurux badan aragtay ayaad af u bedelaysaa kelmado meel nimco ah oo doog maxaynu isla garanaynaa nimcadii iyo doogii waynu isla wada garanaynaa waxaynu isla garanaynay baad tilmaan igu siinaysaa wixii aad aragtay baad waxaad u bedelaysaa af markaasaad ifahansiinaysaa horta nimcooyinka afku uu leeyahay ee ilaahay uu nagu gala sheegan doonaa waa kuwa nin walibana aqoonta waxan uu afka u bedelayo inta uu leeyahay uu aqoon soo gudbin karaa af iyadoo marka horeba dhalinyarada yaryar ay afki uu ku yaryahay iyo sidii oo aanay weli garaninba adeegsiga shantan dareen af Soomaali inta lagu adeegsado maansa looga sameeyo aanay garanayno kii jacaylkana ay abaarda duuqeen oo ay meel la mareen bay anshixiina ka qaweynayso si hoo baarud ka dhigeen daahir ya shabiste ay suuqa wada keeneen way waxbaad doonaysaa inaad ifahansiiso aanad maqal oonad arag baad doonaysaa inaad ifahansiiso oo waxaa aanad arag ee aanad maqal ee aad doonaysa inaad ifahansiisaa talow muxuu noqonayaa sidee buu adiga kuugu yimi waxaasi waxaanad weliga arag oo aanad maqal baad doonaysaa inaad ifahansiiso waa maan awaalka markaan hadday jeer leeyahay maan awaal mal awaal mur awaal hadraawi weligii iyo allihii noloshiisa ilaahay raalaha ka hadee muu arag gabadh timo dheer mooyaane weli muu maqal gabadh timo dheeroo timaheedu dhulka gaadhaan manuu arag haddana wuxuu yidhi timo boqonta joogo baal gore la moodo baarkana casaankii bidix midig iskaadho bulcad lagu xideeyey waa bulcad baabuu kusii rakibay eeg hadda siduu haddana kuugu sheegayo isagaa maankiisa imika ka awaalaya ka samaynaya waxna waa mala awaal oo waan maqlay oo waan malaynaya waxna waa mur awaal oo runtii baan kuu sheegaya waxna waa maan awaal oo wixii aan ku riyooday dee xalay afartaas yood baan imaasado dee ku timaada afartaasaan af Soomaaliga u bedelaya waxa aanan arag aanan maqal baan anigu maankayga maanta ka awaalaya markaasaan ka dhigaya wax maan awaalo dhegtii dadka ku ridaya haddii jireenna kii jiray markaasoo odhanaya ama way jiraan ama waa sida ama ma jiraan nin baa doonaya inuu waxaan adduunkuba jirin uu keeno xaanad maqal
oo aad aragtay se aanad garanayn waad aragtay uma garanaysid sidaa manaad maqal ayuu haddana af soomaali kugu sheegaya xidigtii dagaariyo dayixiyo cadceedoo darisoo gantaalaha dacalada ka baxaya diilimo iska horyimi daaheen dhammaanoo cirka meel ka wada degay oo dab iyo nuur iyo midabkooda dahabka dab maxaa keenay qurux dab maxaa u keenay weligay maan maqal dab la ammaanayo haddana muxuu ku yidhi oo dab iyo nuur iyo dabka midabkiisu waa gold habeenkii qoraxdu markay dhacaysa ama maalintii markay soo baxayso subaxii waa gold waa sida dabkaasoo kale nuurkii markaa nuurkii oo dhan oo dan wadaagu u yeeshay shucaaca ayuu yidhi oo dab iyo nuur iyo midabkooda dahabka ah qurux buu ka dayay haddana markaasaad odhanaysaa waaw wallaahi waa run ninbaa waxaan ammaan lahayn ammaan ka soo saaraya af soomaaligiibuu kaga soo saaraya aqoonta af soomaaliga uu lahaa iyo humaagiisibuu kaga soo saaraya waxaan ammaanba lahayn oo noloshaba soomaali soo ammaanin dee deegaanka aynu ku neelnahay ayuu haddana ammaan kaaga soo saaraya farshaxanimadii aqoonta af soomaaliga dabageelu butooye dowlmado ka caraabay isa sii dhufadkaaga haddaan sii dhigtinayo lagumoodin dhurwaa allelehi dhaladmaanhi waa gabiga geeraarka cali jaamac faraskiisa u tirinayay waraabe oo noloshiisa ammaan lahayn ayuu sii socodka dhitiskaayar ayuu ammaan quruxla uga dhigayaa faraskii iyagoo soo dagaal galay oo soo guulaystay oo warma dhiigle sita oo dhagaroobay ayaa kaynjiqa oo geenuun marayo intaa yarun ay bannaan tahay intaa yarun ay saa u bannaan tahay bal adigu faras dagaal ka baxay oo yaro daalan oo saa u siiso dhig intaasuu qurux kaaga keenay haddana laakiin intuu usoo aaraaranaya oo u soo socday waa mucjisooyinka afka barashadiisu ay leedahay haddiise inta halkan istaagaan dhahdo haddaan isla yaabid beena isla yaabay anigu u laabkacay warkeeda wixii helaan la yaabay waxyaabaha ugu cajaabsaday shakhsi bilaadan been isla soo taagi karo haddaan isla yaabid beena u laabkacay warkeeda dee xaggay ka qabataa maxay tahay af soomaali maaha waxba maaha humaag maaha waa dam waa agaara dam weeyaan dee subxaanaka ya cadiim wixii helaan la yaabay oo maxaa ku helayba horta adaaba isla yaaba marka yani waa waxyaaba aynaan geli karaynin dee subxaanaka ya cadiim oo lagu heesayaa muusigii la keenaya dhunkashada faruuryaha ama dareenkii jacaylkoo keliya kiina dhunkasho iyo wuxuun bay ula carareen hayaa waa maraykani maryaha dhigo aqoonta af soomaaligu halkaasay ahayd aynu kaga baxno maanta intaa af soomaaliga inagoo doo sii soconaya barnaamijkeenu saddexdaa qaybood noqon doono kolba qayb aynu kusoo qaadano ayay waxaynu geli doonaa bal qaybtii garta maalintii dhaweyto waxaynu wadnay garihii fududaa bal maanta garta culus baynu eegaynaa garta culusina waxay u kala baxdaa gar xeer beegti iyo gar cadaawe halkaas laba teleefon baynu qaadaynaa intaynaan gelin oo bal af soomaaliga labadaa teleefon kadib gartaynu gelaynaa kadib baynu teleefonadii qaybtii u geli doonaa marka waa inaynu galnaa laba teleefon oo bal hadda muddadaa imika aynu soo hadlaynay intaynaan garta u gelin bal hadda af soomaaliga inaynu ka eegno injineerku wuu furay khadkuna waa inoo furan yahay waana soo wici karaysaan imika gar xeer beegti iyo gar cadaawe ayay inoo noqonaysaa labadaa qaybood ee garta aynu geli doonaa haddii alla yidhahdo kole teleefonadii inaynu yar sugaynaa insha allahu tacaala haddii kalena waynu ka gudbi doonaa hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum magacaagii halkaad ka soo hadlaysa walaal magacaygu waa halo halo walaal waan ku maqlayaa si toosaan ku maqlayaa magacaagii halkaad ka soo hadlaysa magacaygu waa abdiraxmaan maxamed cabsimed oo jooga gaalkacyo ugu horreyn salaamay adiga iyo daadiyaha barnaamijka cabdigood alla iyo ciise walaal kusoo dhawo barnaamijka maxaad nagala qayb qaadanaysaa cabdiraxmaan walaal aad baad umahadsan tahay waana waxaan kamid ahay taageerayaashaada barnaamijkan aad baan udhegeysa aad baan waxaa bal eraya aan ku wareeray inaan kuweydiiyo bal oo maxaan salaamtiga
codka boqorkii Soomaaliya u qaado ii soo dedeji haddaan garanayo waa kuu jawaabaya marka walaal waxa weeyaan heestan uu leeyahay geerishkii waa dooni mareeya cishqi keenaya waxay taanfahmi waa ereyadaas mareey Soomaalida masaana si qaldan u fahmi niyo waa adigu hindiya af Soomaaliya isku jira reer berbera ayaa runtii dadkii reer berbera hinduda nololaaba wari jiray abteeriskii waa ku nimaade ishka keenaya bagwaankii naxariis doog soo marinaya waa hees yar oo af Soomaaliya afintii isku jirtay ahayd oo qoladan xeebaha ee doonyahu ay hadii jeer hawshooda ku qabsan jireen marka waa dadkan Soomaalida qayb ka tirsan ku hadla may waa af hindi af carabi waa dadkii de adigu shaqaalaha ka wada doonyaha uunba iyagu waa af hindi bay u badantay bagwaankii naxariis doog walba yani waa de waa af hindi abkuunimaade cishqi waa af carabi waa wax la isku daray oo hindi u badan oo adigu de aan wax heesa yar yar dad qolooyinkan doonyaha ka shaqeeya ayaa hawshooda ku tabaysan jiray waa heesa hawladii especially magaalada berbera aad baan ku taageersanaa walaal waxaan barnaamijkana in badan oo fikrad jira Allah يعيسك aad baad u maasantay walaal telefoonka labaad baynu qaadaynaa dibadna waxaynu galeynaa qaybteena labaad hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum عليكم السلام بروفيسور عبدي جود محمد عبد جود الله يعيسك walaal magacaaga halka tasaalayso magacaaga iyo halka ka soo hadlayso magacay waxa la yiraahdaa Ibrahim Maxamuud Ibrahim waxaan kala soo hadlayaa Wembley London Ibrahim Maxamuud Ibrahim waa Yasir Maxamuud Saani saaxibi waran saaxib Boroofesoor Cabdi salaamaya aad baan kaaga qaaday walaal maxaad ka nagala qayb qaadanaysaa waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijka inaan ku hambaleynayo telefishinka aan cusub u soo wareegtay Kansan TV Allah يعيسك annagoo daawadayaasha xiisaha leh waan ku miskiinay aad baan ku soo dhaweynayaa Allah يعيسك hambaliya waa kulay hambaliya saaxib الله يعيسك صاحب انا aad baan ku salaamay Yasir waa dhalinyaradii reer Burco Allah يعيسك thank you very much aynu ka gudubno aynu halka dhigno bal aynu qaybtii garta u galno hadaba mar labaadna Yasir waan ku salaamay waxaan halkan ka leeyahay gartu way noocya farbadneed dhaqankii Soomaalida markii geedka la hoos joogo geedkaba lama keeni jirin oo kuwii hore ka soo sheekeynay maalintii hore badankooda garta geedka lama keeno oo de odaygaasuun baa markaa gartaa garashada iyo aqoontiisa ku kala saaraya labada qof intay de geedkeena ma meel kale iska hor fariistaan laakiin garta jurishanka ama ma garanaysaa ay de xeer beegtida leh ee muddaca iyo madacaalaha iyo guraha iyo igmadka leh haddaad maqasho igmad waa nin la soo igmaday waa lawyer nin af Soomaaligu ku yar yahay laakiin doonay gartiisa inuu meel marsado ogna af Soomaaliga oo yaqaan waa waxyaabaha aan doonay af Soomaaliga garashadiisa iyo aqoontiisa waxyaabaha khadka inuu isku xirayna ilaa noloshiisa uu isku xirantay ka mid tahay shakhsi dhan oo gartii leh oo aan sa garanaynin af Soomaali uu ku garnaqsado hadda gartii uu leeyahay dabadna ninkii garta dambiga lahaaba ka af Soomaali badani oo wada marinaya waa afkaagii barashadiisii markaad ereyo u weydo gartaadii de mucjiso ka weyn ma jirto markaas loo yar soo kareysanaya af Soomaaliga yaqaan hadda isagu ninkani uu garanaya gartii inuu leeyahay iyo meeluhu uu marayay laakiin af Soomaaliga uu ku sheeganaya baanu garanay gartiina waa laga helaya ninka af Soomaali badiyaa de shaarkaaga sidoo kaaga murmaya kaaga qaadanaya waa ka aad sidato ayuu kugu qabsanaya ninka ka af Soomaali badiyaa oo halka la maraya de ilaa burun qaadan meesida waa laga gar helay markaas baladoo fiirso waa laga gar helay marka garahaas waxay noqonayeen gar xeer beegti iyo gar cadaawe gar xeer beegti waxay noqotaa didiif iyo dacwi iyo duco iyo maluug afartaas u kala baxdaa for example imaka nin baa nin yidhi war faraskaaga faras aad u wanaagsan buu lahaa markaa nin magac la buu ahaa waa gartaa didiifka markaasuu yidhi faraskaagaan doonayaa inaan ku dagaal galo waana soo celinayaa ninkii faraskii wuu siiyey uu ammaanaysiiyey sooma celin tolkii baa u yimaado ninkan nin weyn oo magac la buu ahaa de isna miisaan leh
waar hebel gartii mas-uuliyiin adeegyada iyo faraska ku garnaqsan maaye in badan markuu ka warwareegay baa tulkiid dee faraskiina waar ninka kula garnaqsan faraskii ninkan kale wuxuu og yahay inay isdilayaan ama uu kow kaga siinayo ama uu isagu kow kaga siinayo faraskiina kaa kale uu ka damaaciyey markuu arkay wanaagiisii oo anaani noqday markaa ninkaa kalena dee wuu u bareeray inuu faraskan ku dagaalamo aanu lahayn xaq aanu lahayn kana wuu xishoodo intaydin gacanisa saari lahaydeen uga hadha buu is yidhi faraska oo gobonimadii dee raggu yeeli jireen buu yeelay markii laga dayn waayey buu ihi 3 haddii aa keentaan waan la garnaqsanayaa haddaydan se keenaynin ama waan dilaya ama way dilaya gartaa inaga daaye waxaa la yidhi waa 3 ninkii ku caddayn lahaa hadalka hebel waan ogahay oo marka lagu caddeeyo wuu kacayaaye kii fadhiisin lahaa markuu fadhiisto iyo ninkii faraska intuu ka soo qaado xakimihiisa gacanta iga saari lahaa 3 markaa keentaan hebel waan la garnaqsanayaa buu faraskaygiina waan helayaa sidii baa la yeelay waad gardaran tahay kii la yidhi ku dheh ee ku caddaynayay baa markuu ku caddeeyey buu kaco kii qabanayana waa fadhiisiyey kii kalena xadhigii buu ka soo qaado sidii baa garta lagu siiyey garta noocaasa diidif la yidhaahdaa aada aqoonteeda ninkaad la garnaqsanaysa dee leedahay maaha halkanuun dee la odhanayo reer hebel imika qurigun layska soo qaadanaya farunta laysku raggii hore af soomaali waxan waa af soomaali iyo halkan xigmad halkan iyo halkan weeyaan laakiin qaybtani may shaqaynaynin dee qaybta calooshii hungurigu raggaa may shaqaynaynin dee aqoonta noocaasa waxa keenayay waxa inoo bedelay heblaayaa 40 baxday abwaankii hebel ee heesta u samayn lahaa mee iyo fanaankii qaadi lahaa mee dee ayaa inoo bedeshay waxaan aynu imika ka sheekaynayno waxaa inoo bedelay qolo aan xilba saarnayn oo iyagu la yidhi haddaa heesaysaan dee sharciba ma lihidin waxaad doontaan daahir yaa shamistee waxaasaa bedelay aqoontan aynu halkan kaga sheekaynayno suldaan baa bedelay aan suldaankii hore ahayn caaqil baa bedelay aan caaqilkii hore ahayn wabar malaaq ugaas garaad aan kuwii hore ahayn baa dee bedelay imika nooc kalaa yimi oo qaybta hunguriga wada shaqaynaya dee ragga wanaagsani way jiraan laakiin run baa wanaagsan dee wixii hore wax ka duwan baa bedelay gartaa deedif baa la yidhaahdaa garna dacwi baa la yidhaahdaa oo labada nin marka halkaa yimaadaan baa nin la odhanaya hebelow hadal markaasuu odhanaya waar arrinkaasi caynkaasoo ha hadduu ninkaasi sidaa ay odhan lahaa mid labaa ii raaran labaa ii hoosa labaa ii dhinacya labana waa ii jifo hadduu ninkaasi sidaa ay odhan lahaa saasaan odhan lahaa hadduu taay odhan lahaa taay taasaan odhan lahaa hadduu sidaa i leeyahay sidaasaan ku jawaabaya wuxuu og yahay oo gartiisii wuu soo noqsaday oo halka lagaga imanayo dabeedna wuu sii aburaya hadduu ninkaasi taa i leeyahay taasaan leeyahay markaa ninkaasi tii odhanba maayo waayo jawaabteeda way hor taallaa hadduu ninkaasi taa i leeyahay waa ninka ka af soomaaliga badan leh 4 oododba intuu kaa soo xidho ayaa adigoon hadal oon garnaqsan buu gartii qaadanaya jaaniskaaga haddii uu kuu banaayay laakiin awood waayo 4 garood buu kaa yaqaanaa 4 meelooda garta la marayay 4 dhaabad buu dhiganaya laba waa ii raaran tahay wax alla waxaad dulka korxaadin lahayd way kaa xidhan tahay laba waa ii dhinacyada dhinacaad u gudbaysa mal uu kaa soo xidhay laba waa ii hortaalla buu ku leeyahay oo kama gudbi kartid laba waa ii daba jiif baad leedahay oo dib uguma noqon kartid adigoo agugunoo sidaadaas xoolahaagii arkayo oo aan weli weer odhan baa xadhiga lagu dhufsanaya xoolaha uu ka haysanaya wallaahi bay ka tahay gigi maran go-aad meesha la tuun baad kala noqonaysa haddaan isagana lagaaga murmi badee garna waa noocaas gar ducaa jirta oo gartaa xeerbiigteeda ka mid ahoo marka sokeeyuhu ay sira galaan oo ducaa lagu bilaaba ilaahu kii dhibaato doonaya dhibaatada hasin ilaahu kii wanaagu ka maganaysa dhibaato lagu hayo ilaahu ka dulqaad ducaa lagu xiraa ducana waa lagu furaa ducana dhextaal baa looga dhigayo waa la isugu duceeyaa hadhowto oo had iyo jeer garowshiye garwaaqsi bay leedahay Soomaalidu waa tiraa garowshiye waa geelsiin waa qof ku gafay ay garnaqsanayaan oo qofku uu leeyahay garowshiyaan diyaar laahay garowshiyuhu ma aha imika waxaynu baranay sheeko lagu odhanay suldaan baa cumaamad tuuray cumaamadiisu dee isaga dhulka kaga dhacday ilaa suldaankii hore la qiimamaha cumaamada dhulkiisa ha aanay taaban jirin maaha
سلطان كهر كوفية ده هدو إسكا قاعدة حال من ودقاق يساون ورانا سلطان المدحي قاوية بعدين دعضي والوكل اللي تجي على جروشية كسر هي ديمتر لكن ودي صلاتين تك قيم كي كرامة دي شرفت الله هيدي هو اللي شرف كهيدويا ما هالسلطان كان دي مشاهرة كقاعدين الدولة ده ما هالسلطان كان دي كتشب بنيني السوق ما هاد السلطان كان ميلها حين فريسانية كوب شاهد مقاحي كم يعبد شري وصل ثلاثة قيم كي اللي حنشرتي دي وقاسيد يجراد دي وبرهضو مدحيس لما أركي شرين تنتيس لما أركي شرين مرودي سان أركي شرين مسؤولية دي كرامة دي الحياة قولوا دوا قولوا وشغال الدولة دي ولين نرش ماينا أنا ركس ده إنجليز كي بدلي قاب كمركو ينجا بدلي وصلاتين تو أقرأ وكينا حاجة نري تو روري ودي بدي يعني عشيف عقلية وحبي إنه سميه إنجليز كي بدلي ده كيني دبنا كونا وادي أركين مشاهر كأي كقطع وسهر دار ما جوده سيدا عاقل أما السلطان أما جراد أما وبر أما أوجاس يعني تايتلا عينو لين حي سيدا بو وقع هذا كلام مشاهر دولته سالوا سياسي محا سياسات بأوكينية سياسي دواني وحقيامينية مسلطان با وحقيامينية مسعاقل وحقيامينية سبحانك يا عديم وميلا هاي نكلم عنه ده حدا اللي يرى الله يا بيا اوكي waxa ajaybku garta kale waxa la yiraahdaa maluug waa taafraad gar xeer beegtida nin baa isleyseen ninkii baad ku aragtay isagoo qorisita magaalada tuhum baa ku galay maado ku sita gar baad u keenaysa ninkaasi ma ganacsaneeyo caynkan waa inuu tuhum dhaar kugu saaraa وإنه كون أرتا إنه كوسي دنين سيادة نتو أتوهم بعضه تبغى نقول صوب فلسطيني ونك واصل يسنو قريب هذه الله شلي تم قال هذه سيدتي ها إن هذا سيدنين يسجل دارو هدو مركاو ستين ده وستين واستفاء عادي بيلا هي جرت واحد لحاجة تدان وسيدنا تهم مركب ملوك بالله يلا هذا ملوك تنا ملوكه ده حسابات كذي حديقس كذي مركين ده عشرين ده بس وقاعد إنه كل هو ده اسمه كأنه بيحدونه إن شاء الله تعالى مركب وحوي يعني ودارون وتوم سار بالله يلا وين يكون دارته إن قرت عداوه الله بوقف سنتها من نوع قر شريعه يجيل بعره مد شريعة على الإسلام رياوي كب حيسه هل كان سكت وشريعة الإسلام كي جلسه كتاب قال سليمان يوحي إلهي كيري تيف مله وانا عندي سبوت لا اسقاطين ايو mar haddii shareecaba ay gasho de wuxuu ilaahay yiri ma kal ma abil male abil male inta markaynu ka tagno aynu gartii kaga tagno ayaynu waxaynu bil isla eegi doonaa heesti weega heesti weega waxa aad u cajayba shakhsiga bina aadanka ah baa la yiri marka uu xishoon waayo de waxba xayawaan kama dhaamo hablaynu ka hadlayna weligay intaan anigu noolaha shumaankayga gaday ma masaar bay liqday buu weligay maan arag nin la yiri wuu isqaawi gabar isqaawisay mooyaane hees la yiraahdo caashaq halkaa heesta u dhaafi maayo nin weyn war hablaynu lahayn isastura war hablaynu lahayn isastura hablaynu lahayn isqaawinina nin intuu isagu kawaanka iskeenay isqaawiyey oo heesay subxaanaka ya cadiim demooyi bal idinku dee si dhaha nin xishoodaa la arki jiray inan xishootaa la arki jiray nin habradaa la arki jiray inan khajishaa la arki jiray
waxaynu halkan ugu nimi meel wax jiim la yidhaahdo inta nigis yar la xidho murqaha iyo wax la dhiso oo dee ninku isagoo rag dhex jooga hadduu muraayada isku daawanayo oo jiimkiisa iyo birihiisa qaadqaadayo war waxbaba may ahaateene bal ninkan isna intuu kamarada qaaday ninka yidhi waan heesayaa ee kolba jirkiisii meel dhaqaajinaya sidii haweenka isagoo qaawan muraayad isku daawanaya subxaanaka ya cadiim halka aynu marayna baleega hablaynu la yaabanayna imisaynu ka dignay imisay Soomaali ka digtay imisay ka digtay rag maryihii dhigtay baynu maanta haynaa subxaanaka ya cadiim haddii daahir yaa shamis ay hore u jiri jirtayna dee maanta un bay dhacday horta waa nin weyn gadh iyo shaaruba leh oo nool oo lugaynaya oo soconaya ayaa intuu maryihiiba dhigtay muraayadis hortaagay buu istaawaday markaasuu heesay ku daray idinku inta kale anu ku dari maayo subxaanaka ya cadiim war miynaan ilaahay ka xishoonayn war miyaan talow xaggeynu wax ku wadnaa xaggeynu sa u wadnaa hablihii baaba xasaga jigibik buu yidhi ya maalin dee afka ma indhuhun war miynaan waxba ka odhan karaynin bal heestan inuu gelaynaa haddaba taa markaynu ka tagno maansada Soomaalidu inay fariin xambaarsanaataa fiican waxa ugu horeysa ee maansadaas afka Soomaaligu ay xambaarsan tahay waa inay fariin gudbisaa humaaga halkan ku jira iyo sanqaraha iyo xisaabaadka aynu maanta oo dhan ka soo sheekaynay oo fariina waa inay maansada gudbisaa dhalinyaradan dambe iyagu ma wuxuu ba yaqaanaan faruuriyo lala doonanayo iyo qaawis iyo haddaan sidan ku ilaahdo iyo haddii sida miyaanay wax kalaba samaynaynin wixii oo dhan ba intay soo dhaafeen bay waxay yidhaahdeen qoladii dambe ma garan caashaqani galay ma garan goortu helay ma guursan oo waaba ma guursan oo aawadaabaan kalgacalka u soo godlaayay ma guursan oo aawadaaban belo kalgacalka u soo godlaaye goormaa timi waan ku tabeeye jirkiiyo naftayda ku gamac oo sidaa doonto ugu galgalo dee ha ku galgalanna ka daa ha u ogolaanina ka jooji subxaanaka yaa cadiim dee ma garan caashaqani galay ma garan waan gaagixiyo guyaal baan kala maqnaynoo waktigu wuu gaabinaye subxaanaka yaa cadiim maxay ku degdegayeen ma inuu ku galgasho goormaa timi waan ku tabaye jirkiiyo naftayda ku gamo oo sidaa doonto ugu galgalo war miyaynaan ilaahay ka xishoonaynin ma garan caashaqani galay goortuu inantan caashaqu galay garan mayso ma garan goortuu helay ma guursan oo aawadaabaan maan guursan sheekadu horta guurkii way ka tagtay oo dee ninkan qoladan dambe heestan samaysay way caddeeyeenba inaan la isguursanin ma guursan oo aawadaabaan kalgacalka u soo godlaaye goormaa timi waan ku tabaye belo jirkiiyo naftayda ma garan caashaqani galay ma garan goortuu helay garanay ma guursan oo aawada waan ku sugaaye kalgacalka u soo godlaayo goormaa timi waan ku tabaye jirkiiyo naftayda ku gama oo sidaa doonto ugu galgalo allah yaay dee ka daa inuu ku galgasho maaha inuu ku galgasho sidii uu doono weliba ka daa dee miyaan halkaa de waxyaabo fawaaxisha weeyaan waa inaan sharxi karaynin oo ah bal hadda qolooyinkan dambe war heesii hore inaad ku dayataan baa qurux badan ma garan caashaqani galay ma garan waan gaagixiye dee waa iyadii loo imaamadin guyaal baan kala maqnaynoo waktigu wuu gaabinaye goormaa timi waan ku tabeeye jirkiiyo naftayda ku gama bal dee ma macno igama baahna anigu macno aan imika sii sharxo oo ma garanaysaye dee humaagihi ma jirto tani waa dee iyadiyo cad waa walaas guyaal baan kala maqnaynoo waktigu wuu gaabinaye goormaa timi waan ku dabeeye jirkiiyo naftayda ku gama oo saa doonto ugu galgalo heestan dee niyahow ciidankan dambe aynu had iyo jeer ka sheekaynaa
umalayn maayo dee waxaan ku galgalo iyo dhunkasho iyo wax war miyaanay wax kale oo xitaa noloshu way fara badan tahay qaybay leedahay qaybihii kale nolosha in la iska tilmaamo caruurtii la tilmaamo waxbarashadii beerihii dhaqankii wanaagsanaa maskaxdii xalxidhaalihii wixii meeye ma wixii oo dhan intaynu ka tagnay baynu maantana maraynaa dee miyaynu ku galgalanaa iyo nin muraayadda intuu is hordhigay isagoo daahiliya shamisa allahuma albalabeega isna heesay iyo ku galgalaynu maanta maraynaa berrina maxaa ku xiga telefoonada bal ayaynu ku nasanaynaa dabeedna barnaamijkeeni baynu isku soo gabagabaynaynaa bal waxaan jecelahay dhowrkii telefoon ugu dambeeyey baynu qaadi doonaa bal nala eega dad yow heestanna labadan heesooda dambena bal idinkuna cabirkiina iyo qiyaastiina noo soo cabiro bal noo soo gudbiya waa idin sugaynaa hallow asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaagii halkaad ka soo hadlayso walaal waa xuseen oo shifil ka soo wacayo waan xuseen bal maxaad nagala qayb qaadaysaa ma la socotay barnaamijka walaal waan la socdaayo macalin aad baan kugu mahad celinaa horta allah iyo cisakiina adeer macalinkaygii baa soo harta halkan af soomaali baan ka faa'iidaa allah iyo cisak allah iyo cisak allah iyo cisak inta waxaan ku jiraa soomaali aad u xiiseysa waayo soomaali baan ay kasoo soomaali sujubi ahay laakiin soomaaliga baan aad u xiiseeya oo waxyaabo badan baan ka faa'iiday allah ka abaalmariyo allah da jasaaka allahu khayr bal ka waran heesahan imika sidaa doonto ugu galgalo bal sidaad u aragtaa wallahi horta inta waxaan ku jiraa boqolkiiba boqol af soomaaliga ku liidato haye saas oy tahay anigoo af soomaaliga inta ugu liidato ku jira baan u arkaa sidaan adiga aad u dhaliilaysa yaan u dhaliili jiray weligeyba allah iyo cisag codkaaga sare igu qaad sidaad adiga dhaliil ugu soo jeedisay baan anigana aan dhaliil ugu soo jeedini jiray adigooba ka hadlinba horta barnaamijka allah iyo cisag heesaan dambe ilaayo waxyaabo khaldan baan ku arkaa waa sax saasay tahay caawaan ku weydiisaya waxaa kamid ah af soomaali iska fudud oo ajaar dhexdaas aniyo niman odayaal aan isku qabsanay ha waxaa kamid ah oday saaxiibkii horta reer burco ah oo dee dadka soomaaliga loogu tegi lahaa yaa waxa soomaali baan is weydiiyey markaas waxaan iri banaan lidkeeda waa maxay pronoun banaan meel banaan oo macnaha aan waxba ku oolin ha lidkeeda oppositekeeda maxaa waaye dee meeshu hadday banaan tahay wuxuu dhul ugbaad leh de meel banaan dul barwaaqaa unbaa markaa de opposite u ah exactly waa sida sugaay markaas wuxuu yiri dee waa buuro dee way noqon kartaayo marna waa abaar eeg marna waa abaar iyo barwaaqo banaan iyo buur way noqon kartaa haddaad sidaa u egtana midda kale ayadana hawd dhulka hawdka ah macnaheeda maxaa waaye ma banaan hawd sideedaba waa koonfur berigii hore jihooyinka waxay ahaayeen waqooyi iyo galbeed iyo bari iyo hawd waa garta inkastoo hawd ay dee deegaamo fara badan leedahay haddana marbay hawd jiho ahaan jirtay hawdka marka ma meel banaan baa mase waa meel geedo leh way isku jirtaa laakin dee hawd sidiisaba barwaaqo u badan yahay saasaan anigana aan filayay saas waa midaan fahankeyda u baahnaa la cisag bal hadda telefonka kale adiga intaasaynu maanta ku joogeynaa saaxiib xuseen shafiil bal hadda telefonka kale ayaynu qaadaynaa hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الأستاذ عبد الجود وأنا غير أدبان كوسل عن بريان دنيا كل بابنا waynu kala baadnay waa magacaaga halkaad ka soo hadlayso horta والله المقعد أحمد عبد الله وقصور لي دلك نروي مقالة برجن alla ya cisag axmed ma la socotay barnaamijka ما شاء الله سين يوسف قال لي بوك بقى صوت هذا التصوير كي يورنا ما دقالك واحد كدر ستة 10 هذا واحد وين كلمة بيت بانقر واحد وين 10 كلمات نقولنا ويجله لبعض كل ما شنو طبعا كتي في إن شاء الله واحد رجينا تي في وقطع وشاب بدلنا من دام عبد قرات برنامج كي قبل هذا alla ya cisag alla ya cisag imika barnaamijku wuu isma gabadha 10 iyo heesaynu ka dhignay si fiican baad usoo dhigtay 10 baad ka soo bilowday af Soomaaliga 5 qaybood baad u kala dhigtay garti baad soo gashay
maanta heestan maanta aad wadaanan iyo waaba daariya shamis waa wali casri heestan maanta maaragtay waa miyadiyo qaawanba subxaanaka ya cadiim alla yacsak axmed gawdha cabdi goolow daareed baan kugu ambalyeynaya waxa weeye waxaa ninka ugu hadalaa inta badan le ugu caansan maanta adduunka soomaalida dee barnaamijkana waxaan doonayaa inaad ku darto qaybta banaadirigana balda inaad barato reer koonfurka maaragtay luuqadooda oo cashara ay socdo barashadeedii baan ku jira insha allah awgeedishaanbo waa inaad tafsiirtana waa lagaa rabaa niyo heestaan su-aalo badan baa ka taagan ma garata markaan soo bartay imikay aan dialogaa barto weli waa lai wadaa imikay ayaynu keeni doonaa iyagana haddaa la yidhahdo absolute koorse degdega insha allah aadna waa kugu ambalyeynaya saaxib ku jeer baan kugu ambalyeynaya inaad tahay waay axmed allah yacsak axmed norway walaal anna waan ku salaamaya intensive course ba ay socdaa waynu soo baran doonaa insha allah khadka kale khadka waxaynu qaadi doonaa labadii telefon ugu dambeeyey dabeedna waynu isfasaxaynaa هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو waxaynu qaadi doonaa labadii telefon ugu dambeeyey bal idinkuna soo ogaada war bal dee haddaanu qaldanahayna soo saxa haddaanu saxsanhayna dee nagu soo raaca ilaa imika wax dee bal dee aynu caqliga aynu isla kaashano ilaa ana halkan aan fadhiyay naxda kun baa soo fadhidan halo salaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga halkaad ka soo hadlayso برسول عبدي waxaan ka soo hadlaa magaalada muqdisho muqdisho ma sha allah saaxiib magacaaga halka magacaagana noo sheeg magacayga Umar Xasan Aliya cumar maxaad barnaamijka nagala qayb qaadanaysaa bal ka waran maxaad nagu soo kordhinaysaa niyo horta barnaamijka waa barnaamij aad u wanaagsan waxaana dhihi karaa waa barnaamijyada lagu daawashada badan yahay magaalada muqdisho markii la joogo allah yacsak allah yacsak waxaan ka faa'iidnay af Soomaali fara badan aan ka faa'iideynaa waxa kale oo ka faa'iideynaa yani hadda heesaha aan ka sugeynay inaad soo deyso oo aad waxa yani Soomaalida dambe dhalinyarada wax aad looga yahay ama baan allah yacsak marka waxaan rabaa hal su'aal inay iga jawaabto garta la yiraahdo garnacleyda maxaa Soomaalidu maxay u taqaanaa garnacley walaalo weligay maan maqal garnacley balse ii sharax garnacley garnacley waxaa la yidhahdaa garta oo ay galaan maaragtay haweenka ay u badan yihiin garta ay galaan ha dee niyow malaa taasi taa baan maqal weligey manaa gelini gartaa weli maa gelin waa in barasho cusub bal noo faahfaahay adigu cumarow subxaanaka ya cadiim cumarow bal noo sheeg noo faahfaahayo bal dadkuna ha kula dee qayb qaataane qadarkaa yaree haray bal inoo sharax bal garnacleyda garnacley waxaa la yidhahdaa garta ay galaan haweenku markii yani waxaa dagaal haween kalaa dagaalaya marka odayaashii iyo dhalinyarada loo yeelma marka haweenkii bas la rabaa inay garta ay haweenku bas xaliyaan waxaa la yidhahdaa garnacley ma sha allah macnaha tusaale laba haweenaa dagaalaysa labada haween markay dagaasho waxbay isku dhufanayaan ama waa sacaayayaan la kala gar sii maayo la dhihi maayo heblaa qaldanad iyo heblaa qaldanad waxaa laleeyahay waa isdagaashaan marka waxba ma laga soo qaadi maayo adigana allah ku shaafiyo adna allah ku shaafiyo macnaha xugun la kala sii maayo garnacley haddana beriya isu soo noqonaya waa dagaalayaan haddana macnaha la kala goomay arrintooda marka waa garti bilis xaawaleyd oo dee taasi waa barashaa way u baahan tahay bal cumar soo diyaariyo haddaan la yidhahdo barnaamijka nagala soo qayb qaado bal qaybtaa inaga qaabil adigu walaalo imika intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa maanta injineeradayda oo aada u tiro badan oo aanan cadaawe fadhiyo halkaas shaqaalaha dhammaantood calson t v oo maanta u wada heegana barnaamijkan oo aad halkaa ku arkayo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 de ilaa aan arkayo shaqaalo fara badan cabdi godabees israaci af soomaaliga martida sharafta le rotterdam inooga timi halka fadhida dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa kadaba iyo kulan xiisa leh